soo noqod wanaagsan. Sida aan ku ballanay waxaan qaadan doonaa line oo ka mid ah visual elementska aan soo xusnay. Haddii aan dib kuu xusuusiyo, the basic visual elementska waxay kala yihiin line, color, shape, texture, space, form iyo typograph. dhammaantood ayaa adeegsan kartaa si aad u soo saarto wax u eg kuwa magazineska, postereska, websiteska ama xayeysiimaha kale loo isticmaalo. Visual elementska wuxuu door muhiim ah ka ciyaari doonaa qayb ka mid ah designiska aad samayn doontid. Muuqaalkan waxaan ku falanqeyn doonaa qodobka ugu horeeya ee visual elementska ee ah line. Si fudud, line-ka waa qayb muhiim ah markii la joogo designiska. wuxuu noqon karaa thick, thin, solid ama dashed. Yani wuxuu noqon karaa mid oo muuqiisa aad u muuqdo adagi oo kale sida hadda sawirka nooga muuqdo. Thin mid caato oo kale noqon karaa, solid oo noqon karaa, ama wuxuu noqon karaa dashed dhibic oo kale. Lineska wuxuu qurxinayaa curiskaaga, waxa uuna u yeelayaa qaab dhismeed ilqabad leh si loo arko meelaha muhiimka ah. kuwaan waa tusaalayaal ka mid ah lineska. waxa inoo muuqdo waa dhowr nooc oo ka mid ah lineska. haddii aan isku dayno inaan mid u sharaxno, tusaalaha ugu horeeya lineska ku saabsan waxaa ka muuqdo sawirkan dhowr tusaale oo ku saabsan lineka. haddii aan soo qaadano tusaalaha ugu horeeya, waxa uu ka kooban yahay dhowr line oo la isku geeyay oo u muuqda infographic. waxaa sidoo kale qaybta u hooseysa ka muuqda line kaas oo kala jaraya infographics-ka iyo qoraalka u dambeeya. tusaalaha xiga waxaa ka arki karnaa lines dhex yaala qoraalada oo kala qaybiyay isagoo caate ah textiga hadda noo muuqdo kale. tusaalaha xiga waxaa ka arki karnaa in hab border ahaan ama fargeys loo isticmaalay. waxa uuna kala yahay laba line oo mid yahay thin mid kalena yahay thick. waxaa kale oo dhexda ku jira line kala qaybinaya qoraalada sida noo muuqda deertaan. mid afargeyska thin iyo thick markaa leenahay, mid waa midka madow qadiisa badan tahay, waa midka thick ah. thinna waxaa midka qadiisa yar tahay oo afargeyska frameka camal ah oo caataha ah. tusaalaha xiga waxaa loo isticmaalay qaab structure ahaan. waxaa haysanaa line ballaaran oo lagu dul qoray jabtarada nambaradooda, waxaana kala jaraya line kale oo yar. numberska hadda linekan qaybta bidixda nooga muuqdo oo madowga waa line weyn. qaybtan oo horizontal ahaan lineska usoo galayna waa line yaryar. marka qaabka waxaa loo isticmaali karaa jabtariska markii la qoraayo kale. tusaalahan kale waxaa ka arki karnaa waxaa isticmaalan qaab structure ahaan lineska afarta gees oo u samaysan, waana habka frameka. waxaa ka arki kartaa farta qaabka qurxan oo u yaalo. sidoo kale midka qoraalka dhanka bidixda ka yaalo waxaa arkaysaa inuu hab nidaamsan u yaalo isagoo qayb ka qaadanayo quruxda. tusaalaha xiga waa tusaale la isugu keenay dhammaan lineska asagoo wax qaybinayo. qaybta sare waxaad ka arki kartaa lines lagu kala soocay xogta ku qoran meesha. lineska wuxuu noqon karaa stroke. waxaan haysanaa sawir weyn oo meesha noogu jira. qaybta hoose waxaa uga jeednaa lines isku tagay oo jaarti laga soo saaray kaas oo gudbinaya xog. qaybta hoose oo kale si fiican u fiiri. tusaalaha xiga waxaa ka arki karnaa in lineska aad isticmaali kartid qurxin ama texture oo kale. waxaa jira qaabab badan oo loo isticmaali karo lineska. kuwa aad soo aragtay waa tusaale iska yar. si gaar ah u hubi markaad isticmaalayso lineska si wax qurux badan ay kugu soo baxaan. halkaas waxaa ku dhammaynay qodobka ugu horeeya ee visual elementska ee ah line. cashirkeena xiga waxaan kaga hadli doonaa color waxa la dhaho oo ah qodobkeena xiga markii la joogo visual elementska. insha Allah waa inuu cashirka xiga mahadsanidin.